الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtaan waan idin salaamayaa. runtii waa wax lagu qoslo weeyaan. waxaan dhegaysanay shalay BBC-da iyo idaacadda Djibouti laba odhaah oo ka baxday laguna dalbanayo Ismaaciil Cumar Geelle uu kula hadlayo dadka mucaaradka ee dibadda jooga kana dalbanaya inay dalka ku soo laamaan. horta waa guul u soo wayatay halganka siyaasadeed ee dibadda iyo gudahaba laga wado haddii uu maanta gartay uu u yeedhayo uu leeyahay dalka ku soo laamaan oo uu ogaaday in dadkii dalku ay ka qaxayaan haddii ay rag tahay haddii ay haween tahay haddii ay xaasas tahay haddii ay carruur tahay laakiin ha soo noqdaane maxay ku soo noqonayaan ha soo noqdaane ma tacaddigii bay ku soo noqonayaan ha soo noqdaane ma madax bannaani la'aantay ku soo noqonayaan ha soo noqdaane ma xadhiggay u soo noqonayaan ha soo noqdaane ma cadaadiskay u soo noqonayaan ha soo noqdaane ma hanjabaadday u soo noqonayaan ha soo noqdaane ma kooraanka qaaligay u soo noqonayaan ha soo noqdaane macaanahaagay u soo noqonayaan ha soo noqdaane su'aashu waxa weeye maxay u soo noqonayaan waxaan leenahay ma isweydiisay waad garatay in dalkii laga qaxay inay dadkii ka dareereen laakiin ma isweydiisay ma rogrogtay ma baadhay waxa ay dadku dalka uga cararayaan ay uga haajireen waa madax bannaani la'aan waa tacaddi joogtaa waa xadhig weey waa kooraan qaaliya weey waa fikirkooga siyaasadood ay dadku cabbiri laayihiin tusaale maxaa ku filan annakaa tusaalaha waxaan ognahay intayada dalka joogta dhibta haysata baan ognahay inkastoon u gaban adaygeenno inkastoon ku kalsoonnahay halganka siyaasadeed iyo isbeddelka aan aaminsannahay haddana waxaa tusaale ugu filan dadka waxa aad kuwa gudaha joogaad ku samaynayso intaad xidhxidhay intaad shalay xasuuqday intaad baasboorradooda haysatid inta aad habeen iyo dharaar aad u hanjabaysid ayaa ku filan waxa lagu ducaystaa ilaahow carrabkayaga iyo qalbigayaga ilaahayow mid ka yeel baa lagu ducaystaa waxaan kuugu ducaynaynaa qalbigaaga iyo carrabkaagu inuu mid noqdo odhaahdaada iyo ficilkaagu inay mid noqdaan ficil baan samayni odhaahna halkanaan ka samayni wax soconaya ma aha ta labaad waraysiga ama khudbaddii xafiiska madaxtooyada maalintii shalay uu ka jeediyey sidoo kale waxa uu kaga hadlay in dalka la jeclaado in dadku ay isjeclaadaan in cid kastiba mas-uuliyaddeeda ay ka soo baxdo soomaalidu waxay ku mahmaahdaa awrba awrka ka horreeya ayuu socodkiisa leeyahay maxaad u eedayn kuwa kale mas-uuliyiinta adigu waa inaad tusaale noqotid adiga waa in lagugu daydo adiga waa in lagu eegto adiga isle aabbaanahay aabbaha la eegtaa aabbihii hadduu dulmayuu daalim yahay aabbihii hadduu tacaddi samaynaya aabbihii hadduu telefoon qaadanayo uu hebel ku soo jejabi hebel aeroboorka ka celi hebel baasboorka ka qaad hebel xidh ay tahay taasi dee wax soconaya maaha tusaale adigaa lagaaga fadhiyaa adigu inaad ummadda aad horta naftaada aad isku noqotid oo aad isxisaabisid oo dib u eegtid waxa aad qabanaysid kadibna dadka kale mas-uuliyiinta farta ku fiiq oo waxaad tidhaa adigu dadka soo dhowee adigu dadka shaqaalaysii adigu waxaan qabadhe laakiin adigiibaa waa cantoobo jamhuuriyadda Djibouti waa cantoobo weeyaan waa 4 qof oo isgaranaysa telefoonkaad qaadataa waan ognahay galabtii markaad qayilaysid ayaa telefoonka qaadataa hebel baad la hadlaysaa waxaad leedahay hebel ku jajabi waa lagula soo hadlayaa hebel baa aeroboorka ka baxaya celiya baad leedahay waxaasi wax soconaya maaha insha allahu tacaala waxaan kuugu yeedhaynaa odhaahdaada iyo qalbigaaga inaad mid ka dhigtid waxa aad maagan tahay iyo waxa aad aaminsan tahay iyo waxa realitigu ay tahay inay mid kuu noqoto inaad habeenkiina si u hadashid dharaartiina aad si u hadashid waxaasi wax soconaya maaha